wiilkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Shaarub fiidiyo ku baahay baraha bulshada ayuu digniin ugu diray wiil magaalada Hargeysa ku sugnaa oo sheegay inuu jacayl u qaaday Fartuun Balbalaarka. Cabdiqaadir waxa ku sugan yahay magaalada Burco oo dad badan u yaqaanaan gobolka Ragga. Waxa noo suurta gashay inaan ku booqano guriga uu ka degan yahay magaalada. Waxaanu si adag u dhaliilay wiilka reer Hargeysa ee jacaylka u qaaday Balbalaarka, isagoona carabka ku adkeeyay inuuna helayn Balbalaarka balse isagu uu hanti u leeyahay, Burcana ku soo dhaweynayo in badanna uu baafinayay jacayl uu hayaana uu qarsanayay, balse markii uu maqlay wiil jecel uu afka furtay. Waraysi gaar ah oo na dhaxmaray aniga iyo Cabdiqaadir ayaa waxa u dhacay sidatan. halka waxaan baa qodreeyaa ilmi yar ay Hargeysa ka soo ciiyay ee laha Fartuun Balbalaarka jecelahay ayar laxba laga yiri ninba jacaylkiisa gabadhiisa leedahay waan jecelahay ma helaysid baa ku ma helaysid Fartuun Balbalaarka aniga jecel ana isku balbalaarnay sida kimista nin aniga ahayn bas isku balbalaarnay waxaad adigu waxaad sheegtay gurigaad ku sharaxatay waxaad tiri inaad tahay wadnahaaga bidix aniga waan ku seexdaa waan ku soo toosaa way igu dhaxmeeranaysaa waa oxygen ku noolay Fartuun Balbalaarka ma helaysid adar ha ku riyoon Wate way ilaa inta in lag baad jeclay Cabdiqaadir fanaanada Fartuun Balbalaarka waxaan jeclaa ilaa markii Xasan Toob surwaalka u galiyay waa markii ugu horeysay aan arko Fartuun Balbalaarka jira inna caadi ay leedahay waxaan ku jeclaaday jira inna caadi ay leedahay quruxduna ma aha wajiga waa jirka gabadhu hadii jir leedahay wajiga si kasta wuxuu yahay taayir gorilaha oo ekaato dhidar oo ekaato waraba oo ekaato hadii jir leedahay way soconaysaa de wajiga maraabad ka saarayba marka Fartuun Balbalaarka inna caadi ma waa macaan way fariinta marka xaggan aad uga dirayso hadii codkaaga uuba gaadhaba maxay tahay Cabdiqaadir Fartuun Balbalaarka Fartuun Balbalaarka waxa leeyahay baby oo ku jecelahay ana dadka kugu jecel noloshaydaad indhahaygu haddayna social media ka arag habeenkii ma seexdo maalintii ma joogo karo casarkii waxa kuli casiriyuhu bay dhadhami maayay shaha casiriya haddana ku arag habeenkii ma seexdo ma gamaba haddana heesada daawan ama sawir aad leedahay Facebook ka arag marka waxa leeyahay baby haddaad maqlayso ama muuqaalkaygu hadduu ku soo gaaro nimanka aad leedahay please baby nimanka aad leeyahay iga daa Xasan oo ka hadhay ninka yar xun sida xun xiiranay mooto la saaratay iyo kan kale leeyahay kan gurigaad ku leeyayso iga daa baby iga daa dhibis mise waxa doonaysaa inaan xamar ugu imaado nimanka laay iga daa baby aniga dib haykeeni naftaydana xiyaalan iga daa baby fariinta kale aan diray waxa weey baby gobolka Togdheer waa gobol laga taageero waana gobolka waa hooyada fanka abwaan ma jiro fanaan ma jiro haduu jirana waa gobolka soo baxo waana gobolka laga soo saaro nin fanaan noqday ma jiro haduu jirana waa fanaan gobolka Togdheer laga soo saaro Burco yar iyo weyn waa wada abwaan mid ka dhacamale had raawad maqal jirtay gabiguba waxay reer Burco waa wada fanaan fankan ayaga ansixiyo fanana ay reer Burco ansixina ma socdo mana soo baxo marka waxa leeyahay aniga mar 10 haysood xitaa haya marka nagu soo boqo oo gobol laga taageero wallahi sida lagu taageero cawaala aadan xitaa loogama taageero Burco sida laga taageero cawaala aadan baa looga taageerata fadan nagu soo boqo showyadan ku qabanayna oo ku qabanaya ana xitaa ku qabanaya oday Shaarub gobolka Togdheer laga yaqaan caab baa ka ana xitaa 10 haysood diyaari ku dhiibay waqti kooban ayaa ka soo wareegay markii Cabdikariin oo ku sugan magaalada Hargeysa qolkiisa ku sharaxay magaca Balbalaarka sheegay inuu jecel yahay arrintaasi oo saameyn ku keentay baraha bulshada. Fartuun Balbalaarka waxa tahay qof xushmad leh aan jecelahay respect weyn baan ku hayaa I love you Hargeysana oo ku soo dhaweynaa runtii 24 hours waxaan taagnaa airportka. fanaanada Balbalaarka ayaa ilaa hadda aan jawaab ka bixin codsiyadaas jacayl iyo hirdanka u dhaxeeya dhalinyaradaas jacaylka u qaaday. Sikriye Ilyas Jakarta, Burco.